wiilo hubaal waxa ah wax walba aad doonaysid inaad isticmaashid inaad doonaysid inay faa'iido kugu jiraan sidaas la mid ah haddii aad doonaysid social media xataa inaad isticmaashid waxaad doonaysaa inuu wax ka faa'iido balse waxa laga yaabaa adigoo iskaga jiray YouTube-ka aad iskaga dhufato waxa qacad koobaad ku xisigaliya marka sadartan waxaad jeclaysid video-ani inaan kula wadaago YouTubers kugu haboon ugu qalma inaad waqtigaaga gelisid si aad waqtigaagii wax ugu faa'iido hubaal YouTubers kana ku sheegi doono runtii wax bay kugu soo kordhayaan qaarna waxay ku fiican yihiin entertainment-iga haddii aad channel-ka subscribe saar haddii aad hor u joogtidna like-to noo dhiirgelin share kun saaxiibkaaga gaarsi YouTuber koowaad anaga production waa YouTuber ka hadla xogaha dunida laga qoray iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay ee dunida ka dhaca saas la mid ah wuxuu sameeyaa barnaamijyo oo ah hal xiraale saadarta marka runtii qofka intuu reader yahay ama qof intuu wax akhriyo waa intuu wax ka ogeeyaa Zack Multimedia waa YouTuber ka hadla arrimaha multimedia graphics-ka khaasatan wuxuu si toos ah uga hadlaa company Adobe barnaamijyada SMS waxaana u baahan tahay design-ka iyo editing-ka waa hadda wax lagu shaqeystaa waxaan u baahan tahay inaad ka heshid xog iyo faahfaahin intaba uu kula wadaagayaa Zakariya Abdullah Ali waa yar YouTuber ah wuxuuna ka hadlaa arrimaha ganacsiga wuxuuna ka hadlaa waxyaabaha quseeya ganacsiga iyo fursadooyinka ganacsiga haddii aad tahay qof xiiseeya ganacsiga waxa hubaal ah inuu ka shaafi doono sababtoo ah wuxuu ka hadlayaa waa ganacsiga iyo hal abuure iyo fursadaha ka baran ganacsiga dalka Ayub Zaajid waa dhiirigeliye ka hadla arrimaha xiriirka saadartay marka runtu waxa ay tahay haddii aad ku xirnaato inaad xiriirka quruxsan sida haddii aad tahay xaas leh haddii aad tahay qof doonaya inuu xiriir samaysto haddii aad tahay qof xiriirkiisa doonaya inuu ilaashado haddii aad tahay qof qalbi dhaawacan wuxuu ka caawinayaa intaba inuu wado qurxoon ku siiyo asigoo waliba kugu raacinayo diinta iyo meesha uu ka taaganta marxaladaani Axmed Duuni aniga channel-kan khaasatan waxa uu hadlaa arrimaha dhalinyarada okay haddii aad tahay dhalinyaro runtii haddaan hore subscribe u saarin channel-ka hadda waa hubaal inaad saari doonto sababtoo ah hubaal waxaan kuu garan dad qaadaya inta channel-ka ku xiran tahay inaad ka bogan doontid waxba quseeya dhalinyarada adigoo email ii soo diraya anigoo kula wadaagaya fikradaha ugu qurxoon waxa aad ka caawinayso quseeyana dhalinyarada sida timijaraha jirdhiska libiska noocyada ugu qurxoon badan inaad wax badan ka fahanto sida xiriirka ugu qurxoon loo sameeyo waxa ugu haboon aad doonaysid inaad ku xarakooto iyo qaababka ugu qurux badan qiimahaaga aad u ilaalin karto haddii aad tahay dhalinyarada ogaansho waa channel hore in dhiirigeliyo ahaa hadda balse waxaan dhihi karaa waa channel dhiirigeliye iyo channel ka hadla xaqiiqooyinka iyo dhacdooyinka asagoo ka eegayo dhacdooyinkaasi xaqiiqooyinkaasi daahsoon ama xaqiiqooyinkaasi jiraaba saameynta uu ku leeyahay diinta iyo Soomaalinimadaba hurbad waa madal iyo waxbarasho ah runtii waxaan ka caawinaysaa madashaasi oo YouTube-kooda in aad technology-da perfect u noqotid waayo waxay soo saaraan mar walba wax walba ay dhacdooyinka ku xirnaado technology-da saadartan waxay ka caawinaysaa shakhsiyadaada inaad noqoto mid wax ka yaqaan technology-da lana jaan qaada waxa dunida casriga ah ee quseeya technology-da Geeli Bashiir waa YouTuber soo gudbiya qaabka online lagu shaqeysto runtii online waa wax hadda loo baahan inaad ka shaqeysatid waayo dunida digital ay isku bedeshay ma ahan sida uu ku ogeyd saadartay marka waxa u baahan tahay adigoo gurigaaga jooga inaad shaqeysato Baghdad Academy Online runtii channel-kaasi waa YouTuber u baahan tahay inaad ku biirto si aad wax ugu faa'iidaysatid waxa uu ka hadlaa ciwaan walba qoseeya sida English-ka CV loo sameysto sidoo kale sida leader loo noqdo waxaas dhan uu ka caawinaya okay saadartay marka waxaas dhihi karaa cilmigaas inaad baratid waxa naftaada maanta wax ku soo kordhinaya waa bari waa documentary qisooyinkii hore iyo kuwii haddaba diinta quseeya iyo dhacdooyinka khaasatan asigoo xoog saaraya arrimaha diinta iyo taariikhaha diinta ay leedahay waxaa jira barnaamijyo badan barnaamijkiisa u dambeeyay qalbi waliid ayuu ahaa runtii intaas qof ku noqofa daawatay
sidaa darteed marka waxaa dareemay in dadku xiiseynayaan ilan qofku markaas oo wax soo jinisid waa qof muslim ah. Zaki bin Xaaji runtii waa youtuber talentiska wata funny ah. haddii aad xiiseynayso funny runtii waxaa la aadaa wax adiga wax ka faa'iideysid. Zaki sidee wax u faa'iidaa? Okay, Zaki wax ugu faa'iideysan waxay tahay kala aragti duwanaanta iyo fikradaha shacabka kugu hoos nool, shacabka kula nool magaalada. Sidaa darteed marka waxay ku quseynaysaa shacabkaasi sida reaction-ka ka bixinayaan ama qof kale uu bixinayaan in adiguna aad wax ka bartid dadkaasi sida aad wax ugu faa'iid. runtii waxa barnaamij ugu khatarsan oo lagu xirado xiriyan anna ku xiranaay waa aragtida dadweynaha. aragtida dadweynaha waa barnaamij commenti dadka wax ka dhiibteen commentaries soo akhrinaa. runtii commentiga kasta waa fikrad qof soo baxday. sidaa darteed marka intaas waxa ku soo gabeeyay barnaamijkeeni ahaa 10 YouTubers oo ugu fiican asdhihi karo way ku anfacayaan haddii aad tahay qof dhalinyaro ah si aad wax ugu faa'iido. intaasna waxaan ku soo abjeerana barnaamijkeeni. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.